waxaan ka hadlayaa laydhka energy-ga daantaasaan ka hadlayaa oo aad iyo aad shirkad waddanka monopoly loo siiyey waxaan leenahay madaxweynaha danguud ha laga dhigo haddii aan ku heshiinin iyagu inay dawladdu la lacag laga qaada annaka noloma ogol intaan teleson tago inaan aho laydhka ii soo geliya waa taaso ama bixi ama ha bixin marka waxaan doonaynaa in midnimada laga dhigo caasimada oo dawladdu la wareegto oo waxaan buuqaba laga daayo tani sambawarna de wasiir ba halkan u fadhiya waana wasiir waana shirkadii ka shaqeeya taada ma yimshi marka weeyaan marka wax isku mid ah laga qaado leen xildhibaan waxa jirta warqad ka soo baxday wasiirka tamarta iyo macdanta Soomaaliland isla markaasina uu ku hakiyay wada shaqayntii ula lahaa shirkadda korontada ee Telesom taasina ay iyaguna ay ka biyadiideen arintaasi isla markaasina aanay hadda wax la yiraahdo aan shidi karin isla markaasina adeegii ay bulshada u fidin jirtay haba yaraatee waa qalad taasoo kale tan kule waa qalad madaxweynuhu uu soo dhex galaa oo waxaan laga dhigay monopoly-ga laga daayo oo laga dhigaa shirkad danguud laga dhigaa oo dawladdu la wareegto haddii kale de maalmo taasa laga joojiyay dadku waa qaylinayaan sicir gooni laga qaado isku sicir maaha Telesom ma noo jaban annaka marka waxaan leenahay isku mid ha laga dhigo mid tijaaradu waa xorban baarlamaanka ku baaskareynay tijaaradu qof looma xiri karo marka waxaan leenahay tijaaradu xor ha noqoto dadka monopoly-ga ku haysta ha laga daayo madaxweyne soo dhex galay arrintaas waa aad iyo aad bay u shaqantay maxaa shacabka ugu baaqaysaa Soomaaliland maadaama cabashada ugu badan ee bulshada qabtay tahay arrinta korontada bulshada daanta waxaan ugu baaqayaa waa insha Allah deewana ka hadalay hadal laguma yara wana sugu doona wixii laga qabto magaalada madaxweynaha arbood u baaqayaan danaha kale iyaga laftooda ma waa wixii dooxa ka shisheeyna waa daan wixii halkan ka soo reeyna waa daan waa sicir gooniya dhibaatada ma aanay wada haysan laakiin ma haysto aan kuma haysto